maayarka degmada Xudun Maxamed Jaamac Xirsi Guri oo ka wakiila maamulka gobolka Sool iyo xukuumadda ayaa booyado biyo macaan oo loogu talagalay dadka gaarsiiyey deegaamada Docosha, Sabawanaag, Boof, Lafaweyne oo dhammaantood hoos yimaada degmada Xudun. Maamulka degmada oo ka warbixinaya waa saakaanu bilaabaynaa haddii alla idinka uu ka dhigo meesha arlada waa lagu ooman yahay, waa la isugu yimi, ummad fara badan baa isugu timi laga bilaabo jidbaale ilaa ceeri gaabo. intaa waxaa isugu yimi dadkii horey u joogayey, dadkii soo guuray. meesha waxaa ka jira haraad ba'an oo dad iyo dunyaba ah. haddii aan bahayd maayo xooluhu xagga baadka waaba ka ladan yihiin, laakiin waxaa dhibaato taagan ah biyihii iyo baadkii dadka labadaasaa ugu daran. horena waanu u soo marray oo assessment baanu ka soo samaynay iyo kuurgal. haddana biyadhaankii baanu bilaabaynaa, waa booyadihii qaranka. labada booyadood baa loogu dhaaminayaa dadka ilaa degmada Xudun ilaa intii laga gaari karaba. saaka ayaanu bilownay sidaan horeba u sheegay. dee saasaad ula soconaysaa. wayna soo gaareen biyihii maamulku noo soo diray Somaliland. gudoomiyuhu noo siday Maxamed Jaamac waa ka gudoomanay, waa labada booyadood oo noo keenay maanta biyo dhan 100 foosto booyada aad aragtaan oo u keeneen dadka meesha ku dhibaataysan ee meel kasta isaga yimi, ee cawska isugu yimi, ee aan ceelka u wada aroori karin, hadday yihiin dad, hadday yihiin duudiyo. waxa weeye geelashu waxa ku jira, waxaan anigu ahay ninka geedkan jooga, waxaan ku haystaa kaam. biyaha waxa la siiyaa qiimo adag, waxay ka keenaan baabuurtu meel fog. ceelasha biyaha ilahaan jiray, biyaha laga keeni jiray waxay noqdeen biyo la'aan. u soo dadaashay tuuladan aan biyaha lahayn Sabawanaag iyo Docosha aad ugu soo horeysiisay, aad bay kaaga mahadcelinaynaa, waad ku mahadsan tahay. waxaan leenahay dee Sool waa kow maayarka cusub intuu qabsado bay dee tuulooyinkani dee ay yeesheen maamul ama laga war helay ama kormeer lagu soo maray. waxaan leenahay gudoomiye maayar aad iyo aad baa arrintaas lagaaga hadlayaa, lagaagana abaalhayaa, uguna mahadsan tahay. wixii dambena waxaan leenahay dee waad ka war hayn doontaa hay'adaha samafalka iyo dawladdana. waxaan leenahay dawladda oo booyadahan soo bixisay laftigooda, waxaan leenahay iyaguna dee aad bay u mahadsan yihiin oo gobollada dee u soo qaybiyey Sool iyo Sanaag iyo gobollada abaaru ka jiraan, iyaguna waa mahadsan yihiin. waxaa kaloo aan leenahay hay'adaha kale ee gargaarka ee samafalka inay ka war hayaan deegaamada Sool iyo Sanaag ayay abaarta iyo isu soo guurku ugu badan yihiin. waa degmooyinka Daraweyne iyo maxaan ku idhaahday Awrbogeys iyo Xudun iyo Celif Weyn iyo Garadag. Maxamed Kaarshe TV-ga qaranka Somaliland.